muqdisho waxaa saaka si weyn looga dareemayaa dhaqdhaqaaqyo ciidan iyo xaalad amni aad u kacsan iyadoo wadooyinka muhiimka ee magaalada muqdisho lagu arkayay gaadiidka gaashaamo iyo ciidamo tiro badan oo ka tirsan qeybaha kala duwan ee ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya. Ciidamada ayaa waxay si toos ah ula wareegeen ammaanka wadooyinka waaweyn, xarumaha muhiimka ah iyo goobaha ay ku sugan yihiin siyaasiyiinta mucaaradka. xilli mucaaradku ay wadaan abaabul iyo diyaar garow la xiriira banaanbaxa looga soo horjeedo dowladda federaalka Soomaaliya oo la qorsheeyay inuu qabsoomo maalinka Khamiista ah. Qaybo ka mid ah magaalada Muqdisho ayaa waxaa isku hor fadhiya ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale kuwa daacad u ah mucaaradka, taasoo sii kordhisay walaaca laga qabo in xiisada siyaasadeed ay isu beddesho isku dhex hubeysan. Sidoo kale ciidanka dowladda ayaa hareereeyay guriga ra'iisul wasaare hore ee Soomaaliya Xasan Cali Kheyre iyo sidoo kale halka uu ka degayahay madaxweyne Sheekh Shariif Sheekh Axmed degmada Cabdicasiis, iyadoo dhaqdhaqaaqyo ciidan oo aan hore loo arag laga dareemayo xaafado ka mid ah caasimadda. Badi wadooyinka soo gala madaxtooyada Villa Soomaaliya waxaa ku sugan ciidamo tiro badan kuwaas oo wata gaadiidka gaashaaman. Xaaladan ayaa cabsi xoog ku abuurtay shacabka caasimadda, kuwaas oo ka walacsan in khilaafka siyaasadeed ee sii xoogeysanaya uu saameyn ku yeesho amniga iyo xasiloonida magaalada. Mucaaradka ayaa haatan waxa ay wadaan dhaqdhaqaaqyo ciidan xilli dowladda federaalka Soomaaliya dhankeeda qaar ka mid ah siyaasiyiinta mucaaradka kuwa ugu weyn ay guryaha ay ka degan yihiin magaalada Muqdisho ay dul dhigtay ciidamo isugu jira nisa iyo sidoo kale haramcad, taasoo muujinaysa in dowladda federaalka Soomaaliya ay si weyn ugu soo horjeedo habdhaqanka siyaasiyiinta mucaaradka ah. maalinka beri ah oo Khamiis waxaa magaalada Muqdisho looga madarsan yahay inuu ka dhaco banaanbax ay qabanqaabiyeen mucaaradka kuwaas oo isku soo baxaya shacab weynaha ku dhaqan magaalada caasimadda ah Muqdisho. dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxa ay doonaysaa in mucaaradka goobaha ay qorsheeyeen inuu banaanbaxa ka dhaco gabi ahaanba ay sugaan ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya, balse waxaa si weyn ugu soo horjeestay mucaaradka Soomaaliya kuwaas oo diiday in amniga ay sugaan ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya, sidoo kalena ay ka kalsoon yihiin ciidamada ayaga daacad u ah taabacsan. magaalada Muqdisho waxaa haatan wadooyinkeeda lagu dhex arkayaa gawaarida gaashaaman oo kuwaasoo wada hubka noocyadiisa kala duwan iyo sidoo kale ciidamo taagtaagan wadooyinkooda kuwaasoo aad u hubeysan. Tani waxa ay noqonaysaa mid saacadaha soo socda magaalada Muqdisho jibigooda uu isbedeli karo sabab la xiriira amniga, taasoo mucaaradka iyo sidoo kale dowladda federaalka Soomaaliya haatan ay wadaan abaabul labada dhinac iska soo horjeeda.